dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya oo safaarad cusub ka furatay dalka Malaysia xilli Soomaalida ku dhaqan Malaysia ay dhibaato xooggan ay ka haysato dhanka sharciga isla markaasina ay u baahan yihiin howlaha safaaradeed. Safaaradan oo ah tii ugu horreysay dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ay ka furato dalka Malaysia ayaa waxaa dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay 2011 ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay ka furatay safaarad cusub dalka Malaysia, balse howlaha safaaradeed ayaa waxay si toos ah u bilowdeen bilowgii sanadkan. guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Malaysia ayaa si aad ah u soo dhaweeyay furitaanka safaaradan iyagoona ku tilmaamay inay ku soo beegantay xilli loo baahan yahay. Safaaradan ayaa waxaa looga fadhiyaa inay wax badan ka qabato dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta dalka Malaysia. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Malaysia Ambassador Cabtoos oo saxaafadda Soomaalida kula hadlay gudaha safaaradda ayaa waxa uu ka warbixiyay sida u shaqeyso safaaradda isagoona ku dheeraaday waxqabadka muddadii gaabneed ay furneed safaaradda Soomaaliya. waan salaamayaa dhammaanba Soomaalida idna daawanaysa meel kasta ay joogaanba. waxaan u mahadcelinayaa TV-yada noo yimid ee Soomaaliyeed ayagu aad u daneynaya inay u gudbiyaan caalamka safaaradda cusub ee Soomaaliyeed ee dhawaan laga furay dalka Malaysia magaalada Kuala Lumpur. safaaraddan waa safaaraddii ugu horreysay ay yeelato dowladda Soomaaliyeed ay ku yeelato waddanka Malaysia. safiir ahaan waxaa la aqoonsaday 25kii bishii November sanadkii soo dhaafnay. waxaan la kulmay boqorka dalka Malaysia 19kii bishii Maarso taasoo aan u gudbinay warqadahayga. intii ay safaaradda ay furneed waxaanu soo qabanay howlo aad u fara badan. waxaanu nimid dad Soomaaliyeed oo ayagu markaa dowlad u baahan, dad Soomaaliyeed oo doonaya inay qayb ka qaataan dib u dhiska waddanka Soomaaliya. ummadda Soomaaliyeed ee xaggan ku nool ayagu badankooda ay yihiin arday ayanu maaragtay ugu soo gudbinay in ay nagala shaqeeyaan wixii ay dhibaatooyin ay qabaan noo soo gudbiyaan. nasiib wanaag aniga iyo shaqaalaha safaaradda oo ayagu xawl u shaqeynaya inay qabteen howlo aad u badan muddo yar oo aad u kooban. howlahaanu qabanay ayaa waxaa ka mid ah in aynu sharciyada ay ardada Soomaaliyeed xaggan ay ku joogaan aynu u habayno iyo dhibaatooyinka shakhsiyaadka ama arday ha ahaadaan ama waalidiin ha ahaadaan ama kuwa iyagu markaa halkan u yimid inay caafimaad qaataan oo daweyn u yimid ha ahaadaan. furitaanka safaaradan cusub ee dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ee ka furatay dalka Malaysia ayaa waxay xoojinaysaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Malaysia. Axmed Abuukar Azhari, telefishinka caalamiga Somali Channel, Malaysia.